howlgal ballaaran oo lagu daba joogo xubno ka tirsan Daacish oo halis ku ah amniga dalka kana soo horjeeda nolosha dadka ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Bari. Ciidanka BSF ayaa gaaray deegaanadaas waxayna ciidan ku tageen Toga Lagunle oo masaafo yar u jira Toga Camayra dhanka galbeedna kaga beegan buurta Calmiskaad. Intuu howlgalku socday ayaa ciidanku u hakadeen kulamo iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada Soomaaliyeed, waxayna tilmaameen in laga go'ay ceelbiyoodiyadii ay ka cabi jireen iyo xijiyadii halkaasi ku yaalay oo dadkii guran jiray ay ka ceyrsadeen. Waxayna arrintani keentay in dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd maydiga iyo xijiga ay waayeen waxay caruurtooda iskoolo iyo malcaamado quraan ugu dirsadaan si noloshooda ay u maareeyaan. Waxayna ciidanku horey u sii wateen raadinta dadka u gudbiya dadka ajaanibta ah ee ku biiraya kooxda Daacish ee ku dhuumaaleysata buuraleyda Calmiskaad oo ujeedka safarkoodu ahaa. Ciidanka BSF ayaa gacanta ku soo dhigay 4 xubnood oo mid ka mid yahay ragga gudbiya xubnaha ajaanibta Itoobiyaanka ah ee raba inay ku biiraan iyo kuwa la rabo inay falalka bahalnimo ka geystaan magaalooyinka. Hadafka ciidanka BSF waa ciribtirka cid kasta oo sheegata argagixiso. Muwaadin ciidanka BSF waxay ka codsanayaan inaad u soo gudbiso wixii aad aragto inay dhibaato ku yihiin xasiloonida iyo amniga dalka adiga oo wacaya telefoonka gaaban ee ciidanka BSF ee 266